xargajirka mashruucan oo lagu soo saarayo calafka xoolaha waxaa ka qayb galay xildhibaan Cabdirashiid Xidig wasiir ka tirsan Galmudug maamulka degmada Cadaado iyo mas'uuliyiin kale waxaana mashruucan oo habka casriga ah ee hydroponiga loo adeegsaday toddobaadkii uu soo saaraya 70 metrik tan xildhibaan Cabdirashiid Xidig Farxaan Maxamed Dowre iyo Maxamed Cabdullaahi Tiicay oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda mashruucan hirgelisay ayaa sharaxaya wax soo saarka mashruucan iyo faa'iidada deegaanka uu leeyahay mashruucan waa mashruuc ballaaran qorshihiisuna iyo ballaarintiisa iyo hawlqabadkiisuna wuxuu ku xidhan yahay marba waxa la gashado ayaa laga maalayaa ama laga helayaa muddada way kooban tahay loogu talagalay inay wuxuu baxaan sababta ay loo koobayna waxay tahay waa baahida in laga jawaabo centerkan hadda ku yaala Cadaado ee maanta aynu furay wuxuu u diyaarsan yahay inuu soo saaro asbuuc kasta ilaa 70 tan oo cawskan ah sida la sheegay mashruuca xilwaanku sheegay wuxuu u baahnaa dhaqaalo iyo waqti iyo maskax in la geliyo marka way adag tahay inaad taa wixii soo qorto iyadoo qoraal ah keento oo tiraahdo waxaasaa imaan doono hala maalgeliyo ولا دولة ما قد عكرتيد ولا قف جرحس ما قد عكرتيد مركب أنا جاب كأنا استعمال شباب أنا برضه حان دولة ما أنا ولا لها أصول بندق نوع الصومالية خاصة المراحل الرجال أنا أصول بندق نوع وأنا أسكو كرش قرينا أنا أتصل أنت ولا شيء قلنا تاس ما تقول جوا كتير الحمد لله عرف كان رخيصان ومن عفماد له بني آدم كان عفماد له حولها عفماد له زبطة بني آدم وحقولها وح حولها قيمة تاسوا تاس لا بكذي يو وقليل رفع صارينا وعنينا وبصنا يا لبارعي وما نقول نتشابهين مركب أن لا يهاي أما هنقول تقربان أما WFP هنقول أما هنقول تفاعل انتبه وحنا نهاي أرنتان وأرن Soomaaliya ay iska leedahay Soomaaliya lagu badbaadin karo Soomaaliya askaro Soomaaliya ka baxa qarashka ku baxay qarashka galaya Soomaaliya galaysa waxaana lagu badbaadinayaa xoolaha Soomaaliya inay nagala qayb qaataan anagoo u marayna hay'adaha ku shaqo leh dawladda maaragtay federaalka iyo dawladda gobolka Galmudug xoolo-dhaqatada deegaanka oo dib weyn ku qabay saameynta abaarta iyo helista calafka xoolahooda ayaa soo dhaweeyay mashruucan sida uu sheegayo Umar Cismaan Dhiblaawe oo ka mid ah waxa muuqda istifaalo qurux badan oo ay ka soo shaqeeyeen dad Soomaaliyeed runtii haddaan nahay xoolo-dhaqatada Mudug iyo Galguduud waa soo dhaweynaynaa waa wax loo baahnaa aan leeyahay oo la soo baxdeen madaxweynihii hore Tiicay saaxiibkay iyo Farxaan Maxamed Dowre iyo Xidig dhamaantiin وإذن ما هذا علينا ما هذا بعدين وحن ربنا إن كتابنا ضربات كنا نسوق بسنه وحن كلا ضيارنا هاي إن المالجين توحكوا على هذه لها إذنه علمي علي عبدي قدوميها قبل كجلجدود يوزيرك هولها جود جلمدوق أحمد إبلاوي عصر أيا بلنق هذا كما ملاهان إن كشقين دوران سيدي مشروعا يكون لمتك أيقول يسال لهاين وحن هي هو بالقرب تاجنا هاي مشروعان هدي إلهي إدمه قلبهان يبريقان أصدهم الحل كالسوا يوح الله وحي أركتيه أو متقانا وحي يقول سوف تقلي كلام إذا سوف تقلنا إن شاء الله أمام الهان قبل الهان وصيو كلام قلب تقلنا هاي وحروبها نعمل هوش عسل لو سعودسيو إن دمان وزارتها أي قصيص أوردن اسكوبها ضعها ويكملتها وزارة الديجان كحنانة حولها بيرها بيها وزارة كلميسيا معاملة أو قبلة كجرا لما أنتوا لو جبنا هي مركز هوشن إن أي جرب استعلان أقبلان أبيل كان لسوق جديد وحي أقبلها يعني وحي نقولها يعني ما دام شركة جناس أي تهاي إن لسمايو وحلا يراد public private partnership ومشروع عنده الشيء وشركتنا أي نقطة service provider كأنه أديك بحيها Galmudug calafka xoolaha inay noqoto wajiga labaad ee balaarinta mashruucan ayaa maanta laga dhagax dhigay degmada Cadaado kaasi oo la rajaynayo inuu kaalin ka qaato yareynta khatarta abaarta Maxamuud Cabdi Diirshe warbaahinta qaranka Cadaado